halkani waa Somali Radio dalkan Ireland idaacada madax banaan waxaan barnaamijkeena maanta aynu ku soo qaadan doonaa booqasho gaaban oo aan ku tagnay aniga iyo xubno kamid ah jahliyada Soomaaliyeed ee degan dalkan Ireland ku soo booqanay idaacada Near FM oo mustaqbalka future-ka noqon doonta idaacad halkan studio-han localka ka hadasha FM-ta marka waxaan ku bilaabi doonaa aniga iyo dhalinyartii iyo aqoon-yahanadii booqday idaacada inaanu halkan aan wax kelmad aan ka siino marka waxaan ku horeeynaa Daawud Glingel Daawud maxaad ka leedahay booqashadan ay maanta aynu halkan ku nimid ما شاء الله maanta waxay farxada markii uu horeysay wadankan oo joogay muddo sanada inaanay Soomaalida wadankan ku nool aanay lahayn idaacad maadaama oo maanta maalintii ugu horeysay noqotay ee la siiyay idaacad ay leedahay oo ay yeelato studio u gaar ah oo ah studio arkaysan oo ay la wadaagi doonto idaacada Somali Radio.ie FM-ta Near FM 90 la yiraahdo oo ku taala Dublin taasoo siisay space uu Alaam Salaam Maxamed ka sii deyn karo wararka iyo barnaamijyada waxaanay noo tahay farxad aniga iyo xubnaha kale ee maanta ku weeliyay booqashadadan in maanta ay noqotay maalin weyn oo u bilaamatay dadka Soomaalida ku dhaqan kaasoo heli doonaan codkooda iyo magacoodaba laga maqal doono meel walba iyaguna wixii afkaara iyo araaya ay gudbin doonaan meeshan fadhino waa studio aad u qurux badan kan fadhino kii loogu talagalay dadku inay ku doodaan ku kala live jiri doonaan maanta wixii laga dambeeyana waxay noqon doontaa meel dadku inta isku yimaadaan doodooda dhintaan taladooda dhintaan meel iyagana looga jeediyo waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ilaahay marlabaadka Cabdicasiis oo ah suxufi weyn oo arintan isku hawlay muddada yar ee wadanka uu joogay inuu Soomaalida codkeeda meel badan gaarsiiyo taasoo xiriiro badan uu sameeyay aakhirka u suurtagelisay in la siiyo meel iyo maqaam kan aad ka qurux badan inuu yimaado waqtigiisa qaadan karo codkiisa iyo alaan codka shacabka uu betelaba gaarsiin karo meelo badan oo Ireland kamid ah marka waxaan leeyahay waxay Soomaalida dhamaantood noqotay fursad wanaagsan ka soo qayb gala yimaada ka dooda waa meeshii Somali Radio.ie aad u maadsan okay maadsanid imika waxaan weydiin doonaa Amiin oo kamid ah dhalinyarada halkan degan inuu kelmadiisa ka yiraahdo baaska soo qorxadna istaagno bismillaahir rahmaanir rahiim horta markii ugu horeysay inta aynu ognahay taariikhda aynu deganahay dalkan isaga ah laga aasaaso idaacadaas oo ku baxaysa afkeena hooyo runtii waxaana arintaas u tafaxaytay suxufi Cabdicasiis oo runtii kaalin muhiim miisaan leh oo runtii u banaanayd jaaliyada meesha degan runtii booska u buuxiyay runtii wax lagu farxo waa wax magaranaysaa lagu dhiiri geliyo waa wax magaranaysaa lagu hambaliyeeyo inagoo maanta fadhina studio-ha soo booqanay Near FM aynu ku soo booqanay isagoo Cabdicasiis uu ka yahay qayb ka yahay kulankanna runtii isaga la'aantii ayna dhacdeen oo magaranaysaa aan aad ugu faraxsanahay inaan qaybtan ka soo qayb galno runtii farxad weyn bay noo tahay waxaanan ku magaranaysaa boorinaynaa jaaliyada Soomaaliyeed ee degan dalkan isaga in ay magaranaysaa idaacadda ay taageeraan oo ay magaranaysaa kaalinta kaga aadan ay ka qaataan ka idaacad ahaan runtii waynu u baahannahay community-da degan dalkan mid walba wuxuu leeyahay FM buu leeyahay ama luqadiisa ku baxdo ama ku baxdo luqada Englishka waxa weeyaan inaguna booskan maanta way noo banaanaa booskan waxa weeyaan maanta Ilaahay xamdiga hadii maanta wali noo gol yahay oo maanta way noo suurta galay oo maanta aynu magaranaysaa qaadanay kaalintiina iga aadanay runtii aad iyo aad baan uga mahad celinayaa waxaan leeyahay dhammaan daawadayaasha iyo dhageystayaasha idaacadda laftigeeda waa digu magaranaysaa soo dhaweynaya oo aan salaamayaa dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh assalaamu waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim kulli ragii ugu horeeyay baa dhameeyay hadalka laakiin anigu kulli laba kelmadood baan oranaya mid waa iga salaan oo waxaan salaamayaa dhammaanba ummadda Soomaaliland ama Soomaaliyeed ee degan dalkan Ireland waxaan kaloo salaamayaa ama hambaliyo weyn soo jeedinayaa saxafiga weyn ee Cabdicasiis oo khadkan ama hawshan weyn isagoo abaabulkeedana lahaa marka dhammaan waxaan leeyahay maanta waxaynu noqonay dad idaacad leh dad maanta wixii ka dambeeya barnaamijyadooda si kastaba ha noqotee ku kala war qaadan doona runtii base baynu yeelanay idaacadda waynu ku furanay idaacadda halkan magaceedu ku qoran yahay
waa near 90 FM waanad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله waxaynu weydiin doonaa imikana okay cabdiweli aad baan u salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaan waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. hadalka badin maayo oo raggii iga horreeyay baa dhameeyay wax kastoo la odhan lahaa in yaroo mahadcelin baan samaynayaa oon u mahadcelinaya saxafiga weyn Cabdicasiis oo waddanka ilaa maalinkuu yimi ilaa maanta dadaal badan geliyay iyo sidii loo maqli lahaa codkeena. waxa ilaahay xamdigii inuu soo helay maanta in idaacad layna siiyo oo waqti layna siiyo aynu ka hadalno oo aynu dadkeena ku dhiirigelino oo waddankeena laynaga ogaado bulsho intaa leeg inay degan tahay oo codkeena la heli karo oo la ogaan karo sidaynu u noolnahay systemkeena wax kasta meel aynu ka bedeli karno waddankii kala qabsan karno. marka kule hadalka badin maayo waxaan leeyahay waa guul inoo soo hoyatay qof kasta oo Soomaaliyeed oo meeshan joogan waxa laga rabaa inta Cabdicasiis qabtay iyo in ka sii badan iyo wax kasta uu qaban karaba inuu qabto oo la isbarbar istaago qof kasta wax qabanaya intii wax wadana lala qabto intii wax rabta inay bilowdana diyaar baan u nahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh. okay waad